السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله قالقة كسو دواد الدعاء channel waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago hal qiso iyo gabar Ilaahay uu ducadeeda aqbalay ujeedadeedana waxay tahay inaan idin la wadaago qaabkii ay u duceysatay si annagana aan ugu duceysano Alle uu noogu aqbalo muraadyadeenna. nin ka mid ah dadkii saalixiinta ayaa waxa uu yiri maalin ayaa waxaan arkay gabar Kacbada ku dawaafayso gabadhaasna waxay ku celcelinaysay Ilaahayow ballantaadii hore markaas ayaa waxaan ku iri maxaad sidaas ugu celcelinaysaa waxay igu tiri waxaa jirtay hadda ka hore mar aan doon raacay ee dadka la saarnaayeen doontii markaan raacay aniga waxaan watay ilmo yar markaan bartamaha sii marayna dabaylo ayaa kacay oo waan qaraqnay dadkii oo dhan way wada quuseen ama way biyihii ayaa qarqiyay aniga iyo cunugeygii yaraa laakiin waan badbaadnay waxaa jiray nin kale oo isagana doon kale ka badbaaday wuxuuna watay hal loox ayuu saarnaa ninkii asaga ahaa ayaa salaada markuu waaga soo dhow yahay aan is aragnay oo noo soo dhawaaday markaas ayaa wuxuu igu yiri wax xumaan ah ayuu iga codsaday oo sida inaan zina sameeyno waxaan ku iri adoonka Ilaahay waxaan ku dhex jirnaa bad bartankeed mana garanayno inaan dhiman doono iyo inaan ka badbaadayno maxaad ku keentay in waxaas aad i weydiisato anigoo ooyaya ayaan sidaas ku iri markaas ayaa wuxuu igu yiri waxaas wax dhiba ma lahan way iga go'an tahay inaan arrintaas sameeyo haddaba waa inaad hawsha ila gashaa wuxuuna bilaabay inuu gacanta u soo taago cunugii yaraa oo uu dafiga siiyo kadibna badduuba ku sii dhex tuuray cunugii wuxuu bilaabayba inuu dharka iska furo markaas ayaa waxaan iri Ilaahayow adiga ayaa qofka iyo qalbigiisa u dhaxeeyo ninkan xumaanta igula soo socdo Ilaahayow difaac dhexdeena ka samee adiga wax walba awoodee markaas ayaa wuxuu bilaabay ninkii inuu isoo laaco markuu rabay inuu isoo qabto oo isoo laacayana waxaa badda ka soo booday noole aad u weyn markaas ayuu ninkii oo dhan laqay anigoo naxsan ayaa waxaan bilaabay inaan nolosheedii iska sii xarbiyo kadibna waxaa degay mawjadihii baddi waxaan dareemay inaan badbaaday waxaan arkay dadkii ayaan u tagay waxaan uga sheekeeyay waxa igu dhacay in aan soo raacay doon oo haddana doontii ay dabaylo ku kaceen xaaladdeydii markaan uga sheekeynay ayaa dadkii waxay dhaheen annagana waxaan rabnaa inaan kuu sheegno arrin kale oo mucjiso ah waxayna dhaheen waxaan aragnay libaax badeed korkiisa uu saaran yahay ilmo oo sida ilmaha inuu wado oo kale markaas ayaa waxaan nagu qayliyay wax aan arkaynin wuxuuna nagu yiri qaada ilmahan qabta haddii kale waan idin rogayaa sida hadal canaan oo kale markaas ayaan ilmihii qaadnay waxay ku tiri oo hadda ilmihii miyaad haysaan haa oo waan haynaa ayay ku dhaheen kadibna ilmihii ayay tuseen mise waaba ilmaheedii ballanta aan ku celcelinayana waxay tahay tii aan maalinkaas Ilaahay la galay anigoo meelaan ka socday iyo meelaan u socday aanan aqoonin haddana badda dhexdeeda la igu sii dulminayo ilmahayga la iga tuuray in la isii dhibaateeyana la doonayay ayaa waxaan iri Ilaahayow adiga dadka iyo qalbiyadooda u dhaxeeyo ay dhaxdeena difaac ka samee qofkan doonaya inuu i dhibaateeyo Ilaahay ballantii wuu iga oofiyay oo wixii aan ka codsaday wuu aqbalay wuu i badbaadiyay oo wuxuu ii geeyay dad haddana ilmahaygii badda lagu tuuray ayuu ii soo samata bixiyay marka gabadha erayada ay dhahaysa waxay ahaayeen kariimow ballantaadii hore Ilaahayga kariimka ahow ballantaadii hore magaca kariim waxaa laga wadaa wanaag Ilaahayga wanaagsanaayo ayay dhahaysay waxay ku duceysatay erayo miisaan weyn leh oo waxay tiri Ilaahayow adiga ayaa dadka iyo qalbiyadooda u dhaxeeyo oo macnaheedu uu yahay Ilaahayow adiga ka dhow cid kasto dhow dhibaato haday ku hayso dhibaatadaas Ilaahay ayaa kaaga dhow wax kasto oo ka fogno oo adiga aad u aragtay inay fog yihiin Ilaahay agtiisa way ka dhow yihiin markaad duceysanayso qasab ma inaad luqadda Carabiga ku duceysatee waxaa mararka qaar aad u fiican in aad ku duceysato erayo aad fahmi karto sida erayada gabadhan ay tiri Ilaahayow adiga ayaa
dadka iyo qalbiyadooda u dhaxeeyo yacni ilaahay inuu aad kuugu dhow yahay waa inaad dareentaa markaad baryayso ilaahay isagaa yiri وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان haddii nebiga wadoomadayda ay kaa weydiiyaan u sheeg waan u dhowahay waana ka aqbalayaa ducooyinka ay ii soo gudbistaan marka xilliyadaad ilaahay baryaysa waa inaad u bartaa qaabab noocaas oo kale ah adigu ilaahay ma arki kartid laakiin asagaa ku arkaayo ee waxaa laga rabaa inaad lahaataa aaminaada ah inuu ilaahay kuu jeedo dhibaatada aad dareemayso inuu ilaahay maqlayo erayada aad ku hadlayso inuu ilaahay ka jawaabayo baahidaada yacni kalsoonidaadana waa inaad 100% ka dhigtaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu afkeena ku aadiyo erayo culus oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay aqbalkoodana uu soo degdego qisadan cashiro badan baa ku jira waxaana ka mid ah taqwada alle waa tiirka lagu badbaado qisadan cashiro badan baa ku jiro hal iyo laba haddii aan ka taabto waxaa ka mid ah cashirada ku jiro taqwada alle waa tiir lagu badbaado si kastoo ay xaaladdu u xumaato haddii qofka uu alle ka cabsi leeyahay aakhirka ilaahay wuu u gargaarayaa gabadhan 2 jeer bay badbaaday dadkii hore ay la socotay marba ayadii cunugeedii ka soo hareen mar labaad bay khatar galeen oo nin ay u arkaysay inay ku badbaadi doonaan baa asagii musiibo kale ku noqday mar kale ilaahay badbaadiyay oo ilmihii badda lagu tuurayna uu adoomadiisa ka mid ah dushiisa ku xambaaray hooyadii laga nixiyay ilmaha laga tuuray oo niyad jabtay baa haddana sideedii kusii badbaadi weydo ninka wuxuu isiri meesha waaba cidlo cid wax kaa qaadaysana ma laha laakiin arrintii si uu samoodaynin bay ku dhamaatay man caada lii waliyan soo xadiis ma inaan horey u soo baranay qofka alle ka cabsiga leh ilaahay wuu ilaashadaa ilaahay wuu badbaadiyaa wuu difaacaa casirka labaad ee ku jiro waa istiqaamo xaaladaha markay adkaadaan in aysan duruufaha ku bedelin dantaada ilaahay baa hayee dhibaato ku hayso darteed ha isku dhiibin amoor walba waa un dhammaadkeeda inaad qof fiican ahaan jirtay laakiin maalinkii kuugu darnayd ay wax walba halaabeen waxay tusinaysaa khaatimo xumo in xoog iyo amar lagu adeegsaday iyo inaad adigoo maslaxadaada fiirinayo ogolaatay labay kala tahay imtixaanka sababaha u badan ee dadka loogu rido waa in la kala saaro ma mid weecan doonaa mise waa mid sugnaan doona wuxuu noqon karaa yacni in nolosha lagu qurxiyo waxyaabo badan oo aad ku haminaysay ku hirgalaan aad faraxdo oo aad noqoto qof horumar gaaray waa lagugu eegayaa ma ilaahay waad ku xirnaan oo nimcooyinkaa lagu siiyey ma khayrkaad uga faa'iidaysan doontaa mise waxaa noqon doontaa mid fogaada hawadiisa raaca fasahaad ka qaado dhibaatooyinkana waa la mid oo waxaa lagu eegayaa inaad gargaarka meelo kale u raadsanayso inaad shirki ku dhacayso in naxariista alle aad ka quusanayso ood bilaabayso inaad adigooba dhibaataysan ilaahay ku sii caasido intaba way dhacaan waxaa ka mid ah cashirada ku jiro alla aqoon ma ambado qofka ilaahay yaqaano ma quusto ma rajo dhigo isma dhiibo sababtoo ah wuxuu ogyahay ilaahay inuu cid kasta ka dhow yahay cid kasta ka awood badan yahay wax kastana arkaayo oo maqlaayo taa waxay keenaysaa in qofka uu mala wanaagsan ilaahay ka yeesho wax kasta oo markaas ku dhacay ama ku soo socdana uu isdhaho ilaahay tiisaa kasoo hormarayso alle ima dayici doono dhammaan cashirada iyo qaar kaloo badanba waxay dhisaysaa qofka rajadiisa iimaankiisa waana hubaal qof kastoo ilaahay sidaa iyo si ka wanaagsan u barta in uu noloshiisa ka dhex arki doono